gudoomiyaha guddiga duulista hawada gaadiidka wadooyinka dekedaha iyo tamarta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo istiraatiijiyadda xisbiga UPD Dr. Abdifataax Ibraahim Daahir ayaa bartiisa Facebook soo dhigay warqad uu uga hadlayo khataraha ka iman kara duulimaadyada Kismaayo. Hay'adda duulista hawada iyadoo ay fulinayso amar ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay 29 Agoosto soo saartay wareegto heer caalami ah oo ay ku fareyso dhammaan duulimaadyada ku socda ama ka imaanaya Kismaayo in ay Muqdisho soo maraan. Ma jirto sabab maangal ah oo xukuumaddu u cuskatay talaabadan. Maalmihii la soo dhaafay waxaan si dhow ugu kurgalay bal in la heli karo jid ay xukuumaddu uga noqon karto go'aankan, laakiin ma suura galin. Waxaana lagama maarmaan noqotay in aan ummadda Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha caalamiga ah la wadaago aragtideeda ku aadan khataraha ka iman kara go'aankan guraacan. Khatarahaas waxaa ka mid ah qaar maamul, qaar siyaasadeed, qaar dhaqaale iyo qaar bani'aadanimo. Cabdiraxiin Cusmaan Macalin Maxamuud Gaabshe, telefishinka xisbiga UPD Muqdisho.